waxaan ognahay maalimadii shalay ahayd in ciidamada ICE gabar cadaan ah oo magaceeda markii dambe lagu sheegay Renee Nicole Mitchell oo ka mid ahayd dadka legal observerska oo loogu talagalay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ICE ay sameynayaan iyo haddii wax sharci darro ah ay sameynayaan inay ogaadaan in ciidamada ICE ay dileen. madaxweyne Trump wasiirkiisa amniga gudaha iyo aqalka cadba waxa ay difaaceen askarigaasi oo yiraahdeen noloshiisa ayaa khatar ku jirtay oo waa uu isdifaacayay. laakiin muuqaaladii la duubay marka dhowr angal laga fiiriyo waxaa muuqanaysa in gabadhan ayba doonaysay ciidamadu inay dhaafaan oo hal gaari oo ka mid ah ay gacanta u haatisay oo uu dhaafay, kii labaadna intay ka istaagtay oo inuu dhaafo way u malaynaysay, laakiin askartan ay ka soo degeen. markii ay aragtay in askartan ay ka soo degeenna in markaasi kadib ay inay ka dhaqaaqdo ay ka cararto ay isku dayday. askariga ku hor aadanaana waa askariga xabadda ku dhuftay oo ay dowladdu leedahay federaalku waa uu isdifaacayay, laakiin sida muuqata khatar xoogan ma aysan jirin. marka gobolka Minnesota waxa uu leeyahay dilkan dil bareere ayuu ahaa, waa in baaritaan lagu sameeyaa, askarigaasina maxkamad la soo saaraa. gudoomiyaha gobolka ayaa arrintaasi ka hadlaya, waan idinla wadaagaya. marka labadaasi arrin ayaa jirta oo dowladda federaalku ee askarigii difaacayso leedahay difaacu nafsi ayuu sameeyey oo naftiisa ayaa qalqal gasho. gabadhan waxay doonaysay inay gaariga jirsiiso, gobolkuna waxa uu leeyahay askariga noloshiisa iyo askarta kale la socotay ICE-ba khatar kuma jireen, si ula kaca oo bareera ayuu dilkan u geystay. xitaa gaarigeeda rasaasta mid miraayada hore ayay uga taalaa qaybta darawalka ku aadan sida aad sawiradaba aad ka arkaysaan. haddaba mudaharaadyo xoogan ayaa arrintaasi ka dhashay. mudaharaadyadaasi ilaa iyo xalay ayay socdeen, dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobtii dilku uu ka dhacay ayay tageen, ubaxyo ayay dhigeen, waxay shiteen shumacyo kala duwan, taleefanadooda ayaa sidoo kale nalalka ay ka shideen, waxaana ay ku qaylinayeen ICE hadda ha ka baxdo Minnesota. waxaana sidoo kale ay dhahayeen cadaalad ayaan u rabnaa gabadhii dhimatay ee Renee Nicole Good. waxaana sidoo kale mudaharaadyaddan ay intooda badan hadda u muuqdeen inay yihiin kuwa nabdoon, laakiin waxaa maanta la arkayay ciidamada ICE iyo weliba dad shacab ah oo isku dhaco mudaharaad sameynayay. ciidamada ICE-na ay soo qaateen qalabka sunta dadka ka ilimaysiiya ka celiya maaskigaas iyagu ugu jiro, laakiin dadkana ay u adeegsanayeen sunta dadka ka ilimaysiisa, qaarkoodna ay sidoo kale ay xirayeen. haddaba gudoomiyaha gobolka ayaa shir jaraa'id qabtay, Tim Walz. shirkiisa jaraa'id gudoomiyaha gobolku dhowr arrimood ayuu kaga hadlay. waxa uu marka hore kaga hadlay in baaritaanka dilka gabadhaasi loo daayo gobolka, islamarkaana dowladda federaalku ay faraha ka qaado. arrintii iskuulka ay tageen shalay ciidamada ICE ayuu ka hadlay, kadibna dadka mudaharaadayaasha ayuu la hadlay. ugu horreyn wuxuu yidhi waxaan rumaysanahay xuquuqda gobol kastiba uu leeyahay, wax kasta oo gobolkiisa ka dhaca in isagu uu baaro. waxaana sidoo kale rumaysanahay dowladda federaalku in loo baahan yahay arrintan inay faraha kala baxdo. marka wuxuu leeyahay baaritaanka dilka gabadhaasi gobolka ha loo daayo, dowladda federaalku maadaama iyadu ay geysatay arrintan faraha kala baxdo. waxaan sidoo kale rumaysanahay yidhi xaaladdu inay kasii dartay ilaa iyo shalay markii ay arrintu dhacday, haddana nabadgelyo aysan jirin, islamarkaana joogitaankooda uu arrintaasi sababayo ciidamada ICE ayuu ula jeedaa. wuxuu yidhi laba shil oo dhacday shalay markii dilka gabadhaasi loo geystay kadib ayaa waxay ila noqotay mid la yaab leh. waxaan arkay uu yidhi qof markii gabadha la dilay waxaa jiray qof goobta ka agdhawaa oo yidhi dhakhtar ayaan ahay ee aan caawiyo ama xirfad caafimaad ayaan leeyahay. marka wuxuu yidhi shalay waxaan arkay qof dhahaya dhakhtar ayaan ahay oo waxaan doonayaa inaan gargaar caafimaad siiyo qofkan dhaawaca, laakiin askari ka tirsan ciidamada ICE uu leeyahay aniga arrintaas waxba igama gelin. marka wuxuu yidhi qof doonaya inuu gargaar caafimaad siiyo gabadhaasi markii ay xabaddu ku dhacdooba dhaawacay ahayd ayaa loo diiday in gargaarkaasi la siiyo. xitaa ambulastii waa tii muddo 10 ilaa 15 daqiiqaha loo diiday inay soo gaarto goobta shilku uu ka dhacay. marka waxa uu yidhi arrintaasi waxay muujinaysay in wax bini'aadanimo ah aysan ciidamada ICE aysan lahayn, waxayna ila noqotay mid aan aad ula yaabay. sidoo kale wuxuu yidhi shalay markii dilkaasi uu dhacay kadib xaaladdu waa ay kasii dartay, ciidamada ICE-na waxay galeen iskuul oo public ah oo kuwa dowladdu ay leedahay oo Minnesota ku yaala. arrintaasi oo ay caqabado sababeen xilligii gelinkii dambe ardayda la soo daynayay ayayna arrintaasi dhacday. marka waxa uu sheegay in qalalaaso uu ka dhexdhacay ardadii xilligaasi la soo daynayay iyo weliba ciidamadii ICE. arrintan ICE-na si ayuu u sheegaysaa gobolkuna si ayuu u sheegaya. ciidamada ICE waxay yiraahdeen qof ayaan ceersanaynay
nal oo red ama casaana ayuu gudbay kadibna waxaan ku qabanay meel iskuul u dhow oo iskuulka banaankiisa ah qofkii inagoo gaariga ka soo saarayna ayaa waxaa noo yimid qof isuukan sheegay inuu macallimiinta ka mid yahay kadibna ardadii ayaa waxay bilaabeen maadaama baraf uu meesha yiilay in barafkii dhagaxaan intay u samaystaan ay ku soo tuuraan ciidamada icena waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilimaysiisa qof marka shaqaalaha ka tirsan iskuulka ayay ice xireen walow markii dambe ay soo daayeen marka waxay yidhahdeen ilaa iyo 5 mayl ayaan qofkan ciirsanaynay ilaa iyo iskuulkaasi uu nala tegey iskuulkiina waxay yidhahdeen marka ice ayaa iskuulkii timid oo xilligii ardada lasoo daynaynay qalalaasa sababtay maanta marka iskuuladii waa la xiray iyo ilaa iyo berri midowga macallimiinta iskuulada waxay yidhahdeen maadaama xaaladda aysan ammaan ahayn ardadu guryahooda ha joogaan guryahooda ayaana casharada online-ka ayaa laga sii doonaa oo maanta oo 8 ah iyo berri oo 9 oo jimco ah ma jiraan wax iskuulo ah iskuulada public ah Minneapolis iyo waliba St Paul maadaama hadda sabti iyo axadna ay soo socdaan waxa laga yaabaa mudaharaadyadu inay sii ballaartaan marka arintaasi ayaa dhacday iskuulka ka dhacday oo ciidamada ICE ay sidaas u sheegayaan amaba wasaaradda amniga gudaha iskuulkiina uu sidaasi u sheegayo marka waxa uu yiri si aadah ayaan arintaasi aan u cambaaraynaa yiri ka gudoomiye ahaan ka waalid ahaan maadaama horeyna macallin uu ahaan jiray ka macallin ahaan ayuu yiri gudoomiyaha gobolka marka waxa uu yiri xubnaha la soo doortay ee ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota dimuqraadi iyo sidoo kale Republican ah hadana waxaan ka baryayaa in ay ku yiraahdaan iskuuladeena faraha ka qaada in waxa uu la jeedaa ciidamada ICE waxa uu yiri masiibadan boqolkiiba boqol waa ay ka sii daraysaa haddii ay gaarto iskuulada public ah maxaa yeelay dhalinyaro fara badan ayaa iskuulada dhigato waa inana daawanayaan haddana sidoo kale waxa ay daawanayaan qaabka aan arintan aan uga jawaabno marka waxa uu leeyahay waxaan rabaa in codsiyo yaryar aan jeediyo waxaan leeyahay yiri arintan dilka gabadhaasi ha loo daayo dadka khibradda u leh inay wax ka qabtaan oo ciidda gobolka Minnesota wax looga qabto oo baaritaankan dadka mas'uuliyiinta gobolka Minnesota ay sameeyaan xaaladana waxa uu yiri hal la dejiyo adinkoo in ciidamadiina labada kun ah oo aad keenteen gobolka Minnesota ka qaadaya in isla markaana iskuuladeennana ka fogaada sidoo kale waxa uu leeyahay waxaan doonayaa dadku inay si nabdoon ay ku mudaharaadaan maxkamadaha waan ku guuleysan doonaa marka wuxuu leeyahay kiiskan haddii uu maxkamad gaaro waan ku guuleysan doonaa waxa uu sidoo kale leeyahay shacabka Mareykanku way daawanayaan waxa ka dhacaya gobolka Minnesota laakiin wadada kaliya oo aan ku guuleysan karin oo aan ku guuldareysan karno waxa ay tahay haddii arintan ay isku bedesho khalalaaso isla markaana xaaladdu ay ka sii darto arintaasina dadka mudaharaadka sameynaya ayaa gudoomiyaha gobolka uu ugu baaqaya haddaba isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri We believe in states' rights. We believe the federal government needs to stay out of this. We believe that the situation has gotten worse and less safe because of their presence. And I will just say there were 2 incidents yesterday I saw after this that just tore at my soul. I saw an individual at the scene identify themselves as medical personnel, a physician, and asked to provide aid, and an ICE agent said, "I do not care." That lack of humanity was chilling to me. And after this incident happened, and after the tensions rose, ICE agents entered a Minnesota school, causing disruptions at that school. I can't say this strongly enough as governor, as a parent, as a teacher, to our elected representatives, Democrats and Republicans. I beg you, I implore you to tell them to stay out of our schools. This tragedy will be magnified 100-fold if this fight moves into the hallways of our public schools amongst our youth. And they're watching us. They're watching us now, how we respond. So I've got a few simple asks. Let us, the professionals, handle this on Minnesota soil, this investigation. De-escalate this situation by removing yourselves from this situation with these 2,000 agents that were here. And above all else, stay out of our schools. I'd like to ask you to care, but that might be a step too far for some people. But I know Minnesotans care. So we'll protest peacefully. We will win in courts. We will certainly win in the defense of our democracy because the American people see what's happening here. But the way that we don't win and the way that we lose, if this turns towards violence and allows them to escalate. It cannot happen. ugu dambeyntii arinta dilka gabadhan waxa lala barbar dhigayaa dilkii ninkii madowga ah ee George Floyd
sanadkii 2020 askarigii cadaanka ee Derek Chauvin intuu jilibka qoorta ka saaray ku dhawaad muddo 9 daqiiqo uu ku hayay ninkaasina uu geeriyoodo mudaharaadyo guud ahaan caalamka iyo Mareykanka ay ka dhasheen markii dambena askarigaasi 22 sano lagu xukumay welina hadda xabsi uu ku jiro marka arintaasi ayaa lala barbar dhigaya haddii marka mudaharaadyadu ay ka sii daraan qalalaasan ay isku bedelaan waxaa laga yaabaa gudoomiyaha gobolka inuu howlgeliyo ciidamada ilaalada qaranka gudoomiyaha gobolka isaga ayaa awoodda iska leh walow madaxweyne Trump muddooyinkii dambe ciidamada ilaalada qaranka iyadoo gudoomiyaasha goboladu aysan codsan uu meelo fara badan geeyay sida Los Angeles oo California Chicago oo Illinois Portland oo Oregon iyo meelo kala duwan oo hadda laga qaaday oo garsoorayaal maxkamad ee arintaasi ay ka soo horjeesteen marka dadka waxa uu leeyahay mudaharaad nabdoon waa inaad sameysaan dhinaca kale xildhibaanad Ilhaan Cumar oo shalay markii dilka gabadhaasi askariga ka tirsan ciidamada ICE uu u geystay qoraalkan barteeda Facebook ku soo qortay ayaa waxay tiri talaabada ciidamada ICE ay qaadeen waa mid aan la aqbali karin isla markaana aan macquul ahayn waxayna tiri aad ayaan uga careysanahay in macna daradaasi ay sameeyeen iyo tilaabooyinkaasi aan loo meeldayin oo ay ku dileen qof legal observer oo dadka la socday dhaqdhaqaaqyada in ciidamada ICE ay ka sameynayaan Minneapolis marka waxay tiri qalbigaygu waxa uu la jiraa daqooyskii dhibaatadu ay soo gaartay waxana sidoo kale ay sheegtay in xanuunkaasi uu noqon doono mid weligii jira isla markaana maamulka Trump uu sababay dilkaasi macna darada waxay tiri maamulka Trump waxa uu na tusiyay mar kale sida uusan uga taxadiraynin badqabka dadka reer Minnesota isla markaana halkii uu ilaalin lahaa communitygaasi ama bulshooyinkaasi waxa halkaasi ay geeyeen qalalaaso iyo inay qalqalgeliyaan dadka degan goobahaasi ama Minneapolis iyo waliba St. Paul waxana sidoo kale sheegtay hadda dilkan qofkan shacabka in muddo toddobaadyo laga digayay ICE howlgalkan ay ugu yeereen Operation Metro Surge waxa uu faafinayaa cabsi qalalaaso iyo sidoo kalena guud ahaan gobolka dhibaatooyin ka dhaca marka waxay tiri arintan ma ahan mid amniga lagu sugayo laakiin waxay tahay mid gobolka khalalaaso looga abuurayo waxay tiri mid la difaaci karana ma ahan waxay tiri ICE waa in arintan lagula xisaabtamo isla markaana waa in la sameeyaa baaritaan buuxo sharcigana lala tiigsadaa hay'adan ICE marka qoraalkaas ay Facebookgeeda ay ku soo qortay waxyaabaha kale ee ka soo kordha hadii alla idmo arrimahan ka taagan Minneapolis iyo mudaharaadyadaan waa idila soo socodsiin doona